Joseph D'Angelo oo lagu naanayso Dilaagii Dahabiga ahaa ayaa ugu dambeyn maanta oo Sabti ah la soo gabagabeeyay kiiskiisa waxaana lagu xukumay xabsi daa'in. balse intaan ugu galin faahfaahinta cajuuskan dilaaga ah waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa taariikhdiisa oo kooban iyo faldambiyeedyada uu horay u geystay ka hor inta uusan soo galin gacanta laamaha ammaanka Mareykanka. ninkan oo lagu magacaabo Dilaagii Dahabiga ahaa ayaa muddo ku dhow 40 sano waxa uu ka dhuumanayay cadaaladda. Joseph D'Angelo waa dilaa ka duwan dilaayaasha kale ee aad horay u maqashay sababtoo ah ama sababta uga duwan yahay waxay tahay in uu ahaa dilaa dhagar qabe aad u caqli badan ayna adag tahay in wax raad ah laga helo dilalka iyo falalka uu geysto. sanado aad u fara badan oo gaaraya ilaa iyo 40 sano ayuu awood u yeeshay in aan wax raad ah laga helin faldambiyeedyada uu geystay. Joseph D'Angelo waxaa lagu naanaystay ama loo bixiyay magacyo aad u fara badan waxaana ugu caansanaa magaca Dilaagii Dahabiga ahaa. sidoo kale waxaa lagu naanaysay dilaagii la iska iloobay. inta badan falal dambiyeedyadiisa waxay ka dhaceen magaalada Sacramento oo caasimad u ah California, Mareykanka. intii u dhaxaysay 1973 ilaa 1986 ayuu Joseph D'Angelo geystay falalka ugu badan ee uu sameeyay gaar ahaan kufsiga, dilka. ka hor inta uusan soo shaac bixin dilaagan magaalada Sacramento waxay ahayd magaalo nabdoon aad u degan shacabkeeduna ay ku seexan jireen nabadgelyo iyo deganaan. kaliya dhaca kufsiga iyo falalka kale ma ahayn kuwa ku filan. Joseph D'Angelo waxa uu ugaarsan jiray haweenka shaqaalaha ka ah guryaha, gaar ahaan waxa uu qorshihiisa ku beegi jiray marka laga kala tago guriga oo ay ku soo haraan haweenka shaqaalaha ah. markaas ayuuna inta badan fulin jiray howlihiisa kufsiga, dilka iyo dhaca. dilaagan waxyaabaha uu dilaayaasha kale ugu duwan yahay waxaa ka mid ahayd ama sababta uu u qaatay naanaysta Dilaagii Dahabiga ahaa waxay ahayd in uu soo aruurin jiray xogta haweenka bartilmaameedka u ah. waxa uu soo aruurin jiray ama soo ogaan jiray xilliga ay guriga ka baxaan ama ay soo galaan. sidoo kale waxa uu soo ogaan jiray shaqada ay qabtaan ka hor inta uusan fulin qorshihiisa. inta badan marka uu howlgallada fulinayo waxa uu wajiga gashan jiray mask si aan loo ogaan cidda uu yahay. daradiisa ugu horreeyay waxa uu bartilmaameedsan jiray dumarka kaligood nool maxaa yeelay waa ugaar ay u sahlan tahay in uu si fudud u ugaarsado oo uusan wax dhib ah kala kulmayn. waxa uu ku gaaf wareegi jiray xilliyada habeenkii guryaha isagoo raadinaya dariishad uu uga dhaco qoysaska wada nool. sidoo kale xirfadaha la yaabka leh ee uu adeegsan jiray dilaagan waxaa ka mid ah in marka uu u soo dhaco lamaanayaasha isqabo uu indhaha uga qaban jiray toosh aad u iftiin badan si ay u garan waayaan jihada looga imaaday. waxa uuna soo xirin jiray dhar madmadow taasoo qayb ka ahayd qorshihiisa argagaxgelinta bartilmaameedyadiisa. intaas kadib marka uu hubsado in xaaladda ay degtay waxa uu ku dhihi jiray isdejiya, halkan uma iman in aan idin dhibaateeyo, waxaan u imid in aan qaato hanti iyo raashin. haddaba dilaagan loogu magac daray Dilaagii Dahabiga ahaa ayaa cadaaladda Mareykanka ka dhuumanayay oo baxsad ka ahaa muddo ku dhow 40 sano. maanta oo Sabti ah ayaa lagu xukumay 2 sano oo xabsi ah iyadoo dhageysiga kiiskiisa ugu dambeeyay ay qaadatay muddo 2 saacadood ah. D'Angelo waxa uu ahaa 74 sano jir ka tirsanaa booliska gobolka California ee Mareykanka. waxaana la soo xiray oo uu soo galay gacanta laamaha amniga Mareykanka sanadkii 2018. bishii Juun ee sanadkan 2020 waxa uu heshiis la galay dacwad oogayaasha waxaana uu kula heshiiyay in aan lagu xukumin dil. taas bedelkeedana waxa uu qirtay dilka 13 qof. sidoo kale waxyaabaha uu qirtay waxaa ka mid ah falal dambiyeedyo la xiriira kufsi iyo dhac baahsan. dambiyadaas aadka u foosho xun ayuu D'Angelo ka geystay isla gobolkii uu ka ahaa booliska, isla gobolkii uu shacabkiisa ilaalinayay amnigooda. haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar lana sii wadaag asxaabtaada. sidoo kale haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub nagu soo biir, subscribe saaro, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeen ugu dambeeyay. mahadsanid.